qayb military ahaan loo keenay baanu police military ahaan u adeegsanay oo ka dhiganay magaaladan ku wareejinay magaalada Muqdisho oo shabaabkii kuwa kale ay ku darsameen oo la yiraahdo ciyaal weero runtii ciidankaasi muddo kooban waxay ka dhigeen magaaladii ilaahay amarkiisa waxay ka dhigeen nabad waxay maanta magaalada Muqdisho ay ku raaxaysanaysaa nabadgeliyo qarax la'aan dil la'aan ayadoo xaasiisa taada ma santiin booliis military sharafi karaamo xaafadda amina noo dhintay ciyaarada wax dhan waa ka reesanay alxamdulillah nabada ku jirnaa wixii hore qalaasadii dhacoogi tuugidii waxan waa ka reesanay taasna adiga adiga maalinna gaar ahaan booliis military sharafi karaamo alleeyahay ma santiin abaalkiina ma gudi karno dadaalkan intaas ka sii wada leen waan in la shaqeynayna waan garab taaganahay ma sha Allah anigu fiican yahay alxamdulillah horta hal arina qabta agar wuxuu yahay alxamdulillah inta seeman meeshan xaalka ilaahay oga tuugo iyo ciyaar weerartu waa qabnay laakiin ciidanka markay maadaan booliis military waa u madcilin taas ilaahay ka soka aad iyo aad amniga safe waaye ma sha Allah jibigu degan yahay wax buuqa ma jiro alxamdulillah ciidanka u madcilin dhamaan waan maasantiin taliyaha ciidanka kulli dawladda waxa aad ugu mahadcelinaynaa booliis military-da iyo ciidanka xoogga dalka militariga oo mataqaanay muddadii dambe aad ugu shaqeynaya xaafadda Oodweyne markii insha Allah waxaan ku faraxsanahay in mataqaanay tuugadii iyo ciyaal weeradii iyo burcadii xaafadda joogtay mataqaanay laga musaafirisay oo maadeen ciidanka marka aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mataqaanay waan maasantiin insha Allah kadib Oodweyne safe waaye Oodweyne adikooda halo soo dalxiista Oodweyne leeyahay waran hadaa magacii ku bilaa oo Qaasim Cabdinaasir Dalmar Raay waxa deganahay xaafadan Oodweyne gaaran kaamil alxamdulillah xaafad wax badan iska bedelay kadib markii ciidamada la keenay waa wax badan inoo qabteen inta badan xaafadan waxa lagu yaqaan oo dhib badan ka jirtay aha ciyaal weer iyo tuugo laakiin alxamdulillah hadda markii ciidamada la keenay xaafad amnigeed aad u sareeya wuxuu noqday mid safe ah alxamdulillah ilaahana ma daas kale mid ma hadda labaad waxa uu soo jeedinayna dawladdeena iyo ciidamadeena Soomaaliyeed meel kasta joogan waan ku maasin shaqadooda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay meeshan amnigeedu inuu maaragtay isliim yahay oo amnigeedu la isku halay karo dib iyo maaragtay dhibaato ay qaxarina iska jirin intaas baan anigu ka warbixinay ciyaal weeradii ciyaal tuugada waa laga nastay awr dhibaato noocay lagu hay awlka hormo qashaad badan yahay dadaad maadaama ciidamada oo booliis military hadda soo baxeen waa ka nasanay dhibkooda iyo foodooda hadda habeenkii ilaa meeqa saacad soo jeedaa hadda ilaa habeenkii xilliga garo aan gaaro ilaa 3 saac daro ilaa 4 saac ilaa 5 saac waa socon kara meel isku halay karo waa amnigeeda laakiin koor ma oo qasqashadii ciyaal weeri ciyaal tooriya socotay iyo tuugo laakiin hadda amniga waa saxan yahay maadaama ciidamada dalka noo nadiifiyaan waa meel oo lagu ciyaari karo waa